basaasiin ay soo dirsadeen ciidamada huwanta ee ka dagaalama bariga gobolka Sool ayaa saaka lagu qabtay ku dhow og ama deegaan ku dhow og ciidamada SSB ayaa qabtay ciidamadan ay soo dirsadeen ciidamadan basaasiinta ee ay soo dirsadeen ciidamada huwantu waxay ahaayeen 3 nin oo saaran gaari borobogosa huwanti saaka aan ku soo qabanay siidaha furinta dagaalka ee u dhaxeeya anigu intaasan doonay Muuse Ismaaciil ama Habar Yunis waxa weeyaan anigu nacayb ma qabo kaliya nimanka huwanti waxaan doonay inaanayna kala jeclayn inaad fahantaan isaaq waa isaaq idoor waa idoor bay ku oranayaan waliba ciidanna idin soo kaxaysan mayno dawladna idin soo kaxaysan mayno annagoo Muuse Ismaaciil aanu iska kin celinaynayo salmaaya sidiina ka qadhi doontaan sidoo kale waxa weey taliyaha guud ee ciidamada Soomaaliland ciidamada qalabka sida ee Soomaaliland ayaa saaka og ku shaaheeyay waxaana idin sida 3 toddobaad oo uu shir kula jiray saraakiisha ugu sarsareysa ciidamada Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaan faahfaahin doonaa odayaasha ugu sareeya beesha Muuse Ismaaciil ee Habar Yunis ayaa fahmay dagaalkii ay ku soo qaadayeen huwanta iyo nimanka argagixisada ah ee ka dagaalama bariga gobolka Sool sidoo kale waxaan dur istaagi doonaa nin lagu magacaabo Sakariya Saacin oo isagu Itoobiya tagay sheegayna inuu soo helay beesha Garxajis beel ay walaalayhiin oo lagu magacaabo Habar Nuusa waa qodobka ugu qosolka badan leh waan la yaabay qodobka waayahay saaxiib bal soo dhawaada maanta abaaro 9kii subaxnimo waxay ciidamada madaniga Habar Jeclo ay qabteen 3 nin oo borobogo saarna kuwaas oo ahaa basaasiin ciidamada huwanta ay soo dirsadeen waxaana durtaba la keenay taliska guud ee ciidamada Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa 3 nin iyo gaarigii borobogosta ahaaba lagu soo wareejiyay haddaba waxa weey sida la xaqiijiyay muuqaalkan ninkan dhex fadhiya hubkan uu ku soo hanjabayo codkiisa waan idin sii dayn doonaa hubkan uu ku soo hanjabayo nin kale oo wax qaadaya ayaa darkasi nimanka la qabtay ama nimanka borobogosta watay waa mid kamida ninka hubka dhex maraya ka hadlaya maahay ka kale waan hambalyeynaya in ay ciidamada SSB ay qabtaan basaasiin iyo fataaliin loo soo diray in ciidamada Jamhuuriyadda Soomaaliland sidoo kale ay basaasaan ciidamada madaniga Habar Jeclo ee iyagu isxilqaamay inay deegaanadooda difaacdaan waayahay waxa soo badanaya toddobaadyadii ugu dambeeyay niman ma garanaysa biyaha kulul cabaya oo iyagoo socdo ciidamada Jamhuuriyadda Soomaaliland u soo galaya sidoo kale waxa soo badanaya basaasiin iska dhigaya dad walwaalan oo iska soo galaya aagaga ay ku sugan yihiin ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee og kolkaas markii la wareystana qof waalan ba iska dhigayaan balse marka dambe ee toos loo wareysto ee meel lagu xiro waxa weey way soo wada baxayaan waxay leeyihiin wana la soo diray waayahay bal waxaan idin sii dayn doonaa in yar oo sikina qaabkii loo qabtay nimanka basaasiinta ahaa ee ciidamada Soomaaliland inay basaasaan iyo kuwa madaniga ay huwantu u soo dirsadeen bal in yar leega wataa huwanti saaka aan ku soo qabanay siidaha furinta dagaalka ee u dhaxeeya horta qodobka isaga waa guul aad u weyn inay ciidamada indhahoodu aad u shaqeeyaan inay ciidamada magaranaysa sirdoonkoodu aad u shaqeeyaan waxa weey dadka qaar baa inta la qabto la iska sii daaya bari dhaweyd waxa dhacday nin ciidamada huwanta argagixisada ka tirsan intuu wajaala soo galay baa la xidhay waxa lagu xidhay rugta booliska ee wajaala ayaa lagu xidhay balse markii dambe qaar baa u hadlay oo kuma jiro dagaalka waa nin maatiya iska sii daaya dagaalku ma jiro waa magan balalo la sii daayay towbuuri laas caanood bu ka soo dagaalamo qori ka soo qaato qori isku soo sawiro maalin kasta waa uu soo hanjabaa sidaas lamida yayna dhicin baan leeyahay nimanka basaasiinta ee soo galay oo
marka waxa loo baahan yahay inaanay dhicin qaabka ninka la iska sii daayay si la midab kuwan maanta og soo galay inaan la sii day oo ma garanaysa haddii ay dembi marka la baaro haddii ay yeeshaan dembi lagu dili karo in lagu dilo haddii kale ay xabsi ahaadaan de inta nabad ay imanayso meesha ay xal imanayso qodobka isaga halka ayaa kaga tagaya waxa maanta farxad ii ahayd inaan arkay ninka ugu sareeya ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland Nuux Taani taliyaha guud ee ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland inaan maanta arko isagoo oo ku sugan macnaheedu ma aha hadalkaygu uma dhigna muu tagi jirin balse waa uu tagi jiray sheeko yar baan idinka hayaa hadaba waxa weeye Nuux Taani iyo saraakiisha ugu sareysa ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland labadii toddobaad ee ugu dambeysay waxa uu shir albaabada ay xiran yihiin uga socday magaalada Hargeysa maantana waxa weeye sawiradan laga soo qaaday waa sawirada cusub ee Nuux Taani iyo saraakiil kale oo isaga darajo ahaan ka hooseysa balse ku xiga oo maanta oo ka shaaheeyay waxa weeye waxa la dhigay ama ma garanaysaa maskaxdii nimanka huwantii haddii ay iyagu markaa dagaal soo qaadaan maskaxdii ay ku jabi lahaayeen baa la soo dhigay kolkaa waxaan leeyahay Nuux Taani tan iyo maalintii ay lahaayeen ciidanka waanu soo jabinay 2023 bishii 8/25 tan iyo maalintii oogii Hargeysa u dhaxeeya waxa uu hayaa taladii ay ciidamada qaranku ay niyadooda ku soo kamil lahayd ayuu mar walba isagu taagan yahay waxa uu hayaa shaqo adag isaga iyo saraakiisha ku xigtaaba waxa farxada in maanta ay og kula shaaheeyeen ciidamada kala duwan ee qalabka sida General Nuux Taani iyo markaa saraakiisha ku xigtaaba labadii toddobaad ee ugu dambeeyay saan idin sheegay shir albaabadu xiran yihiin ba Hargeysa uga socday sidoo kale xalay ilaa ma garanaysaa waa uu ku sugnaan doonaa intay talooyin kale oo badan ay u soo xidhmayaan waanan hambalyeynaya waxaan sugaawin inuu madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland uu isaguna og tago waxa weeye oo ciidanka niyadda loo soo kaawadeeyo oo ciidanka in aan la berber taagan yahay la tuso ayaan u baahanahay waanan hambalyeynaya generaalka guud ee ciidamada Jamhuuriyadda Soomaaliland taliyaha guud ee ciidamada Jamhuuriyadda Soomaaliland taliye waxaan ku leeyahay dadaalkaaga halka ka wad ilaahay kula garab galo huwanta iyo nimanka argagixisada ah ee ka dagaalamaya bariga gobolka Soolna waynu ka guuleysan doonaa haddii la yiraahdo goobtu way leecdaa balse ma jabto reer Soomaaliland iyo ciidamadooduna waa gob weeye qodobka isaga halkaas kaga taga muuqaalkii ka horeeyay waxaan idila wadaagay beesha Muuse Ismaaciil in dagaal lagu qaadayo oo magaalada Ceerigaabo ay nimankii harti taagan yihiinba harti bariga culus ay taagan yihiinba annaga ayaaba iskale magaalada Ceerigaabo iyo deegaanada hoos yimaada annaga iskale balse taa waxa ka dabeeyay oo hadlay odayaasha barta ugu sareeya ama wax garadka kuwooda wax laga dhageysto ayaa xalay hadlay waxa uu yiri sidan waliba ciidanna idin soo kaxaysan mayno dawladna idin soo kaxaysan mayno annagoo Muuse Ismaaciil aanu iska kin celinaynayo salmaaya sidii ka qadhi doontaan waaye haddaba anigu intaasaan doonay Muuse Ismaaciil ama Habar Yoonis waxa weeyaan anigu nacayb ma qabo kaliya nimanka huwantii waxaan doonay inaanayna kala jeclayn inaad fahantaan isaaq waa isaaq idoor waa idoor bay ku oranayaan balse ninka Habar Yoonis markuu maanta yiraahdo isaaqa kale aniga waxa iga dhow ma garanaysaa harti waa sidii salaadiinta garaxis qayb kamid ay yiraahdeen be waa sidii uu yiri oo fureen ninka ay ku sheegeen waaba milkiilaha xisbiga wadani ninka ay lahaayeen waxa uu yiri isaaqa la sheego aniga waxa iga dhow harti daarood oo numataanahay waanu umataanaanu nahay hooyana wada dhashay waxa weey oo isaaqa kale iga dhow sidaas inay dhacdo ayaan diidanaa balse anu waan la kaftaba reerka Habar Yoonis ama garxays la yiraahdo ee kama kaftabo markastana waxaan leeyahay guushooda waan jecelahay haddii ay nimanka huwantii daandaasiga joojin waayaanna insha Allah tacaala waxa weeye caqiiba xumo ay la kulmi doonaan iyo wax aanay jeclaysan ay la kulmi doonaan nimanka huwanta ee argagixisada ku sugan bariga gobolka Sool waayahay Sakariya Nuur Saajid aanu imaado waxa weeye ninkan horta Sakariya Nuur Saajid baa la anu saasaan u aqaan shakhsiyan si caadi isku ma naqaano waxa weeye horta daahaan waa ka yarahay laakiin anigu isaga ma aanan kulmin
balse waxa uu qayb ka ahaa mashruucii irir Soomaali la oran jiray waa dadkii ugu cadaayay mar walba irir Soomaali irirsan buubuunin jiray maantana Sakariya Nuur Saajin waxa uu tagay Ethiopia ayaa u tagay halkaas waxaan maraynayaa in Addis Ababa tahay ay maanta u dhex joogaan waxa uu u tagay niman uu ku sheegay isagu niman uu ku sheegay habar Nuusa ayuu ku sheegay waxa uu yiri hadii aad maqli jirteen habar Yoonis kuwana habar Nuusa la yiraahdaa oo waa habar Yoonis walaalahood hadii aad maqli jirteen G36 oo micnaheedu tahay 36 qabiil oo garxajis ka kooban yahay maanta 36 garxajis waa uu ka badan yahay waxa uu yahay G37 waxa weey waa 37 jilib ayuu garxajis maanta ka kooban yahay oo waxay nagu soo biirtay habar Nuusa rag la yiraahdo ninka sidaa u hadlaya waa Sakariya Nuur Saajin oo hore ugu soo ololeeyay irir Soomaali wixii la oran jiray balse markii dambe god ku dhacay oo inamadayadii lagu qafaashay oo la daldalay waaya bal hadaba in yar codkiisa aan idin maqashiyo wallahi qosol baad u dhimanaysi nimankan uu maanta booqday Sakariya Nuur Saajin sidoo kale waxa u duceeyeen beelaha Soomaaliland sidoo kalena waxa ay sheegeen in khayraadka Soomaaliland iyagu afoormay ku hadlayaan in khayraadka Soomaaliland ay ugu horeyso baddu inay walaalahood la leeyihiin bay sheegeen Sakariya Nuur Saajin mashruuciisii ugu dambeeyay halkaas u maraya bal horta ducadii ay u duceeyeen beelaha reer Sheekh Saxaaq ee ugu horeysa habar Yoonis iyo beelaha kale reer Sheekh Saxaaq walaalaha ama dhamaan ay dhaahdo beelaha reer Soomaaliland degan ayay nimanka ula kulmay Sakariya Nuur Saajin ay maanta u soo duceeyeen bal yar ilaahay bidagay ibu dagay hire takasi god korma gobaasi god lafanya gaaraasi god leentanyaraasi god dadkan deegaankan ku nool ee habar Nuusa iyo anagoo halka joogno habar Yoonisa waayahay codka aad maqlaysiin ama ducadaasi waa ducadii ay walaalaheen baata u soo direen ma garanaysaa reer Soomaaliland ama habar Yoonisa ama reeraha kale Soomaaliland degan aamin u dhahday waxa weey madmadoobo Allah ku yaqaan weeyaan aamin reer Soomaaliland inoo dhax waxaan la kaftamayaa reerka la yiraahdo habar Yoonis inta badan waxay dhaahdaan reerka Jibriil Abukar baa ugu badan marka la codeynayo gabilay iyo dhulka waxa weey codod baa laga helaayo codadka waxa kordhiyay iyagu yiraahdaan orama ma garanaysaa la socota balse maanta way cadaato habar Yoonis niman waxa walaalahooda habar Nuusa la yiraahdo u soo baxay waxaan leeyahay hadii awal lahaydeen orama laga badiyo orama Muuse u codeysay idinkuna maanta waxaad soo kaxaysatiin habar Nuusa Sakariya Nuur Saajin sheegay ee reerkii la oran jiray G36 maanta u bedeshay G37 waxaan leeyahay codkii codlan ay bixin jireen Jibriil Abukar maanta codkii codlan mid habar Yoonis ama garxajis way haystaane nimankaas soo kaxaysta baa leeyahay maanta laga bilaabana oramadii aad ku sheegi jirteen reeraha kale galbeedka Soomaaliland idinka nooga dhow waxa weey saaxiibayaal intay buuqaalka buuqaalada ku kulmi doono sidaa waxay idinka tagay. Assalaamu calaykum.